bismillaah maalin wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan kusoo dhawaada videogeena maanta oo idin soo diyaariya anigoo ah cali maxamed ismaaciil baashi insha allah videogan maanta waxaa kusoo qaadan doonaa sida loo isticmaalo Microsoft Excel Basics ama aasaaska hoose ee Microsoft Excel haddii aadan hore u isticmaalin ama isticmaalkiisa mar hore ay kugu dambeysay insha allah waxaa kugula wadaagi doonaa Microsoft Excel aasaaska waxaan isku dayi doonaa in aan kusoo koobno muddo 20 daqiiqo gudahooda oo maaragtay wax kasta oo ugu baahan tahay Excel in aad ka ogaato insha Allah okay haddii aadan videoga ilaa dhamaadkiisa aad sii daawan doonin fadlan nagu caawi inaad like saarto haddii aad Facebook nagala socoto ama YouTube keena Ali S online sidoo kale waxaan jeclaan lahayn inaad asxaabta la wadaagto oo share ka sii taabato faafisaan hal kamid asxaabta inaad la wadaagto oo yaraan wanaag waa la faafiyaa sidoo kale kanaalkeena YouTube-ka ha iloobin in aad subscribe saarto oo aad nala soo wadaagtaan barnaamijyo aad jeclaan leedahay inaan video ka soo sameyno markas waxaa diyaar u nahay in aad maaragtay su'aalaha soo weydiisaan aad videoyaal ka soo sameyno haddii ay jiraan wax talo iyo su'aal iyo soo jeedin aad jeclaan leedahay inaan nala wadaagtaan markasta iloobin waxaa noogu soo qori kartaa commentiga hoose ama email noo soo dir waxaa isku dayi doonaa sida uu dhaqsiyaha badan inaan kaaga soo jawaabno hadduu ilaa raali ka noqdo videogeena maanta ha inoo bilowdo insha allah waa idin salaamay dhammaantiin meel kasta joogtaan kusoo dhawaada videogeena maanta oo aan kusoo qaadan doono sida loo isticmaalo Microsoft Excel Basics ama aasaaska hoose ee isticmaalka Microsoft Excel haddii aadan weli isticmaalin ama isticmaalkiisa mar hore kugu dambeysay insha Allah videogan aad ayuu muhiim kugu noqon doonaa okay aniga hadda videogan maanta waxaa ku isticmaalayaa Microsoft Excel oo Mac ah versionkii ugu dambeeyay 2021 haddii aad haysato Microsoft Excel hore ama videogan waqti dambe haddii aad daawan doonto oo aad haysato Microsoft Excel versionadii ka dambeeyay midkan wax badan ma ku kala duwana inta badan way ka siman yihiin waxay ku kala duwan yihiin aad ay u yartahay okay si aan u furno softwarekan waxaa tagaysaa ama loogihiisa sidaas ayuu egyahay Excel X ayaa loogu saaran waa calaamada sagarka markaa furto Microsoft Excel waxaa ku soo muuqanaya pagekan oo ah backstage waa qaybta dambe ee laga maamulo softwarekan haddii aad isticmaalaysa softwarekan asigoo online ah waa isticmaali kartaa hotmailkaada ama outlookgaada waa ka dhex isticmaali kartaa inta badan way ka sameeyeen haddii online ku isticmaalaysid laakiin hadda waxaan isticmaalaynaa midka appka ahaan oo noogu jiro computerkeena waana Mac sidaa soo sheegay haddii aad Windows isticmaalaysid wax badan ma ku kala duwana insha Allah okay marka horeysa aan furno waxaan aragnaa qaanado badhamo dhinaca bidix nooga muuqda home new recent share qaybtan backstage-ka waxay ka sameyn yihiin Microsoft Word Microsoft PowerPoint iyo Excel intaba way ka sameyn yihiin oo qaybtan backstage-ka waxay wada leeyihiin home new recent share open haddii aad daawatay videoyaasheen hore aan soo sameynay Word-ka ama PowerPoint-ka si loo isticmaalo backstage-ka wax badan ma ku kala duwana okay qaybtan sare waa template badan ayaa ku jira meeshan oo hore loo soo diyaariyay oo aad maaragtay isticmaali karto waqti badan aad u baahnay inaad maaragtay mid cusub aad diyaariso haddii aad taqaan waxa rabto meeshaas ayaa ka dooranaysaa okay templateyadan kuwa ka sii badan waxay ku jiraan qaybta sare more template markaa furto internet template yaal kala badan ayaa yaal markaas okay haddii aad rabto inaad ku laabato meeshii hore aad joogtay home ayaa tagaysaa more template markaas okay markaad tagto new badhanka labaad templateyaasha badan meeshaas ayay yeeliin midka rabta ayaa ka raadin kartaa oo waa ka dooran kartaa recent kuwii ugu dambeeyay aad furtay meeshaas ayaa soo galan kane ma kusii fogaan doono waxaa teganaa home haddii aad rabto templateyadan mid ka mid inaad isticmaasho waxaa kaliya u baahan tahay inaad klik ku siiso kadibna aad taabato create qaybtan hoose ama loo mar ayaa double click ku siin kartaa hadda ma u baahnin waxaa tegaynaa oo kaliya home kadibna waxaa tegaynaa blank workbook double click ayaa ku siinaynaa markaa sidaas usoo furnay waxaa inoo soo muuqday page ka horeeyay oo ah workbook okay waxa workbook laga wadana waa kusoo laaban doonaa insha Allah magaca documentiga furnay qaybtan sare ayuu ka muuqdaa workbook 1 ama workbook kii koowaad okay marka waxaa ujeednaa badhamo badan ayaa meesha inooga muuqda marka hore waxaa isku day doonaa inaan fahamno magacyada iyo shayyaasha meesha kala yaaliin sababtoo marka hore marka meel cusub imaato waa inaad iska fiirisaa hareeraha oo aad barataa badhamada ugu muhiimsan iyo meesha ku yaaliin ka horreyn qaybtan u sareysa waxaa lagu soo koobay taabyaal badan oo aad iyo aad muhiim u ah sida home tab insert tab draw tab page layout way fara badan yihiin
home tabka ayaa ugu isticmaal badan. tab kastana gudihiisa waxaa ku sii dhex jiro ribbon system. Okay, ribbonka wuu fara badan yahay. ribbonkana waxaa ku sii dhex jiro groups sida qaybtan oo kale. group waa group, cut, paste, format, waxaas dhan group. fontiga qaybta ku saabsan waa group. sidoo kale insert wuxuu leeyahay ribbon system. ribbon systemkiisana groups ayuu si kala xirxiran. All right, qaybtan hoose, qaybtan waa formula bar. formulada ayaa lagu qoraa, waa ku soo laaban doonaa iyadana. waxaa ka sii hooseeya dhinacan oo waxaa la address bar. addresska ama godadka ayuu wax ka sheegaa. qaybtan ugu weyn ee barnaamijka ama softwarekan waxaa la dhahaa sheet. excel sheet ayaa la dhahaa. sheetkan wuxuu ka kooban yahay column iyo rows. kolomada waa sida a column, b column, c column, d way fara badan yihiin. marka dhinaca midig usii dhaqaaqdo oo ay z gaarto aad waxa bilaabo a b aad ay u fara badan yihiin. sidoo kale rowska aad ay u fara badan yihiin. waa kow, row 2, row 3 aad iyo aad ay u fara badan yihiin. waa millions ugu dhow yihiin. waxaa lagu diiwaangelin karaa qiyaastii Soomaaliya oo dhan dadka ku nool populationka waxay u baahan yihiin oo kaliya 10 sheet oo kan lamid ah in lagu diiwaangeliyo haddii loo sameynayo nambarada iyo waxyaabo lamid ah iyo adressyada. waxaasoo dhan macluumaadka qof kasta ku saabsan waxaa ku filan oo kaliya 10 sheet oo excel workbook ah. hal workbook oo 10 sheet ah ka kooban. okay, waa barnaamijyo kale ama waa advanced excel marka maku sii fogaan doono insha Allah. okay, qaybtan hoose waxaa aragnaa sheet 1 plus ayaga ogtaal. haddii arabto sheet kale inaa kusoo daro sheet 2, sheet 3. okay, waa sii wadi karnaa. sheet kastana sidaa soo sheegnay wuxuu leeyahay column iyo rows. haddii arab sheetkan inaad iska tiro right click ayaa ku siinaya, kadibna delete ayaa leeyahay. midkaana iga tuur, right click, delete. sidoo kale haddii arabo inaan magac ka bedelo waxaa tagaya right click, rename, start, enter ayaa taabanaya. waxaa rabta ayaa ku qori kartaa haddii taariikha u rabto ama waxyaabo kala duwan adiga markaas dooqis kale. okay, qaybta hoose markaad soo socoto dhinaca midig waxaa u jeednaa zoom slide. waa slide zoom in, zoom out. wuu kaa fogeynaya, wuuna kuu soo dhaweynaya. okay, sidoo kale dhinaciisa bidixi waxaa ka muuqda percentage. waa ka dooran kartaa intaa rabto 200%. okay, haddii aad rabto kasii waaweyn ama ka yaryar meeshas aad ku laabanaysaa. meeshas waa qoran kartaa custom 280 ayaad u baahanahay. zoom in iso dheh. all right, u fiirsa markaan columnka iyo rowga isgoos ayay leeyihiin, meel ay ku kulmaan. hadda columnkan iyo column b iyo row 3 godkaas ayaa maaragtay ka dhexeeya. godkaas magaciisa waxa la yiraahdo qaybtaas sare ayaa lagu soo sheegay b3. waa ba 3 godkaas ay ku wada kulmaan waa isgooskooda c3. sidaas isla mid ah haddii aan rabo midkan waa f8 qaybtaas sarnoo ka arki kartaa. spreadsheetkan wuxuu ka kooban yahay cells aad u fara badan. cellskana waa columnka iyo rowga meeshay ku wada kulmaan. okay, waxaa kaloo jirto range. rangena waxaa la dhahaa godad badan oo isku xiran. tusaale ahaan laga bilaabo c3 ilaa iyo d5 ayakan waa range. rangekan iyo howlihiisana waa kusoo laaban doonaa insha Allah. haddii aan rabo inaan hoos u dhaqaaqo muuska click waa ku siin karaa meeshaan rabo, ama waxaa samayn karaa enter ayaa taaban karaa. enter hoos ayay u dhacaysaa. haddii aad rabto kor inaad usoo laabato shift ayay qabanaysaa, kadibna waxaad taabanaysaa enter. okay, sidoo kale haddii aad tab ka taabato dhinac midig ayaa u dhaqaaqaysaa. tab haddana shiftiga qabo tab. markasta shiftiga waa cagsiga maaragtay badhanka marka hore aad isticmaashay. haddii aad enter taabatay shifti aad la qabato markii dambe waa cagsigiisa. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa falaaraha keyboardkaada sida midig u soco, hoos u soco. midaana aad ugu sahlan aaminsanahay. waxaana kasii sahlan inaad muuska toos ugu dhufsato meesha rabto. okay, taasi waxay ahayd sida loo doorto cellska kala duwan. okay, markaan aan soo gelino qoraallo iyo tirooyin kala duwan, si aan usoo gelino waxaa isku day doonaa in aan sameyno school. tusaale ahaan machad ayaa sameyn doonaa oo magaciisa waxaa ka dhigaynaa markaas kabaro
.com ayaa ka dhiganaa. iskuulkeena waxaa u baahnaa inay noo joogaan macallin. Okay, macallinka inaan ogaano qiimaha oo noogu shaqayn doono. sidoo kale waxaa u baahannahay qalab. Okay, qalabka asigana waxaa rabnaa inaan ogaano qiimihiisa. Okay, markaan waxaa qornay ciwaan macallinka loo baahan yahay, magacyadiisa inta ayaa qoraysaa, qiimaha ay ku shaqayn karaan meeshaas ayaa gelinaynaa, qalabka u baahannahay qiimihiisa inta ayaa gelinaynaa. isku dayna marka inaan buuxino, kadib ayaa isku soo laaban doonaa. marka waxaa soo gelinay qoraallo iyo tirooyin kala duwan. waxaa u fiirsataa qoraalada dhinaca bidix ayaa la geeyey, halka tirooyinka la geeyey dhinaca midig. selka dhinaciisa midig ayay joogaan wax kasta oo ku saabsan tirooyin, marka laga reebo midkan. macallinka Xirsi Axmed meeshuu 200 qaadan lahaa si qalad ayaa u qoray oo la kaca. waxaa ka dhigay meeshii 0 laga rabay, waxaa ku daray o ama o ayaa ka dhigay. si aan qaladkan u saxno oo maaragtay tirooyinka iyo xarafyada isku dhex qasan, dhinaca bidix ayaa la keenayaa. si aan u saxno waxaa awoodnaa inaan 2 dariiqo ku saxno. kow waa calaamadeyn karnaa, toos ayaa ugu qori karnaa tirada rabni. markaas inter markaa taabano bidix ayay toos u tagaysaa. Okay, qaybtan sare back ayaa taabanaynaa. back sidii hore noogu soo celi. qaybtan kalena waa redo, sidii ka dhignay inoogu soo celi. Okay, gadaal u wad iyo hor u wad, gadaal inoogu soo celi. haddii aan rabo markaas inaan meesha dhexda ku dhex qoro, 2 mar ayaa klik ku siinayaa, gudaha ayaa u yimaada cursorka. markaas kadib tirada raba ayaa gelinaya. okay ayaa taabanaya. okay, u fiirso magacan Xirsi Axmed godka selka A5 ku jiro. markaa fiiriso formula barka waxaa ujeedaa Xirsi Axmed Daahir. okay, 3 magac ayaa meesha ku qoran, laakiin meeshan 2 magac oo kaliya ayaa ujeednaa, sababtoo ah way naga qarsoon tahay. si aan u muujino ama u soo saarno waxa qarsoon, waxaa awoodnaa inaan selkan ballaarino. si aan u ballaarino, u fiirso falaarta mousku way isbedeshay, waxay noqotay falaar 2 af leh. marka hore waxay ahayd ku dar calaamad plus oo kale, hadda waxay noqonaysaa falaar 2 dhinac u kala jeeda. kadib klik ayaa ku siinaysaa bidix, kadib waa haynaysaa meesha markaa gaarto waa sii daynaysaa. okay, okay, dib inoogu celi sidii hore uu ahaa. haddii aan rabo qaab kale oo loo maaragtay loo la ekeysiin karo godku wax ku jiro automatic, waxaad tegaysaa 2 column dhexdooda. markaas kadib double click ayaa ku siinaysaa. okay, markaa ku siiso wuu qaadanayaa oo booskii cabirka sax ayuu soo galaya, marka waa automatic. okay, sidoo kale haddii aan rabo god kasta oo kuwan ku wada jiro dhan, dhammaan godadkan oo dhan, haddii aan rabo inaan isla ekeysiiyo, waa wada calaamadeynaya godkoo dhan, kolamadoo dhan. kadib dhexdooda ayaa maaragtay double click ku siinaya. u fiirso way soo yaraadeen oo cabir la eg markaas ay noqdeen. okay, waxaa rabaa marka inaan helo sum macallimiintan ama qalabkan aan haysto meeqa ee maaragtay ay gooyaan ama qiimahooda waa imisa. hadda waa xisaab rafli aad ka qornay, wax bil ma ku saabsana, hal mar maal qaadanaya mise waa sanad, waxaas dhan ma la sheegin, laakiin waa sida laiskugu daro ayaa soo qaadanaya oo keliya. si aad iskugu darto waxaa awoodaa inaa formulka toos u qorto, equal ayaa qoraysaa, kadib sum qows ayaa furaysaa. markaa qows furto kadib 2daas god ayaa dooranaysaa, klik ayaa ku siinaysaa, 2da god aa rabtay ayaa dooranaysaa. markaas u fiirso waa range B4 ilaa iyo B5, 2daas dhibac ayaa loo yaqaanaa ilaa. kadib enter ayaa taabanaysaa, isku darkooda automatic ayaa lagu siinaya waa 350. okay, haddii aan rabo formulkan inaan u isticmaalo godkan, waxaa samayn karaa inaan mar kale qoro, ama waxaa samayn karaa inaan kan kasoo koobiyeeyo. si aan u koobiyeeyo calaamadda qaybtaas hoose, u fiirso falaarata waxay noqonaysaa madow. marka madow noqoto klik ayaa ku siinaya, waa soo jiidaya. fiirso isku darka waxay noqotay 750. midkan tira ma ku jirto, eber ayaana la siiya. hadaa rabto waa iska tiri kartaa, ama waxaad samayn kartaa back. markaa taabano back, si kaloo ka sahlan waxay tahay godka rabta ayaa tagaysaa oo isku darka, kadib waxaad tagaysaa auto sum, asiga ayaa ku iska daraya, kadibna enter ayaa taabanaysaa. waa tan ugu sahlan oo maaragtay aad samayn karto. okay, haddii aan rabo 2dan tir inaan isku daro, inta ayaa calaamadeynaya, kadibna waxaa tagaa auto sum. haddii maaragtay godka uusan gaaraynin ilaa kan kale, waxaa qabanaysaa falaarta qaybtaas hoose ay qabanaysaa, kadib waa gaarsiinaysaa ilaa godka aad rabto in lasu kaa daro, kadib enter ayaa taabanaysaa. okay, dhinac kasta oo iskugu dari kartaa, dhinaca janjeerka ama dhinaca joog ahaan oo iskugu dari kartaa.
okay taasina waa sida la iskugu daro formulayaasha si loo qoro in aan si fogaanimo rabno oo advanced au si dhaadhacno markaan waxaa u gudbi doonaa dokumentigeena in aan maaragtay naqshadayno ama farta wax ka bedelno tusaalahaan ciwaanka waxaa rabaa inuu dhexda ii imaado waa calaamadayna ciwaanka iyo godadka u dhow dhan farta muuska bidix ayaa ku haya weli ilaa godka u dambeeya marka imaado waa wada calaamadeeyey kadib waxaa tagayaa mar cells waa isku daray oo godadkii waa isku furmeen xuduudihii u dhexeeya o dhan way ka baxeen oo marka magac cusub ayay yeeshay godka waxaa loo bixiyey A1 eedii ayaa maaragtay qoraalkii ku jiray ayay wada qaateen intaasoo dhan okay haddii aan rabo fontig inaan ka bedelo weliba ayay calaamadaysan tahay okay fontig marka kadib waxaa doonaa Latin Modern Roman 10 okay kadib waxaa ka dhigi karaa bold farta haddii aan rabo sii waaweyneyn karaa ama waa yareyn kartaa haddii aad rabto farta kalarka wax ka bedel buluug madow xigeena kuwaana waxaa rabnaa inaan ciwaan ahaan kasoo muujino dokumentigeena waxaa teginaa bold inooga dhig waxaana doortaa Latin Modern Roman okay haddii aad rabo fartoo dhan oo pageka ama sheetkan oo dhan inaan hal mar wax ka bedelo waxaa tagayaa qaybtan click markaa ku siiyo qaybtan sare kadib waxaa awoodaa inaa dokumentiga oo dhan hal mar wax ka bedelo okay kulli way isbedeleen haddii aan rabo fartoo dhan kalarka guduud ka dhig okay qaybtaas ayaa laga wada doortaa kulli ma rabno naga soo celi back okay waxaan isku daynaa inaan backgroundka ka bedelno qaybtan ciwaanka backgroundka waxaa qaybtan ayaa wax lagu bedelaa fiil waxaa ka dhiganaa buluug bibiya okay haddii aad rabto madow ka dhigo fartana markaas waa inaa caddeysaa okay saa rabta ka dhigo waa adiga iyo markaas dooqaada haddii aad ku qunacsaneen sida u muuqdo wax waa ka bedeli karnaa oo waaweyn waa ka dhigan karnaa godadka markaa wada calaamadaysa kulamadoo dhan kadib mid ka mid ayaa markaati jiidaysa oo keliya okay u fiirso wuxuu siiyey godka ugu yaraa cabirkiisa ayaa la qaatay kulli haddii aan rabo inaa wada la ekeysiiyo u fiirso godka hadda aad jiiday kan ugu weyn ayaa mid kasta cabirka u qaadanaya kulli way wada weynaanaan okay marka sidaas u baahnay waxaa u baahanahay in automatic sidii hore usoo sheegnay double click okay sidoo kale haddii aan rabo in kolamada balbalaariyo waxaa jiidi karaa kulli waa balbalaarana markaas okay ma u baahnay sidii hore igu soo celi meesha soo tagi kartaa ama mar kale waxaa samayn kartaa waa wada calaamadeyn kartaa waa soo gaabin kartaa markaas alright markaan waxaa soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey haddii aad rabto inaad soo geliso insert sawir haddaa inaad soo geliso rabto meeshaas ay ka dooranaysaa insert picture from file ayaa tegaysaa okay mana kusii fogaan doono haddii aad rabno inaan soo daabacno waxaa tegaynaa waa calaamadeynayna meesha rabno inaan soo daabacno okay markaa calaamadeyno kadib waxaa tegaynaa file print area set print area aad tegaysaa okay markaan qaybta soo printeyn lahayd adiga ayaa dooratay kadib file ay ku laabanaysaa mar kale print ka dhigaysaa okay qaybta la printeeyey meeshaas ay kaaga soo muuqan doontaa u fiirso waa qayb yar oo keliya ayaa kaga qoran pageka okay hadda u baahneen cancel naga taabo waxaa samayn doonaa markaan inaan save ka dhigano waana muhiim inta badan markaa documentiga ama workbook furto ayaa maaragtay save hor laga sameeya si aan u save garayno waxaa awoodnaa inaan maaragtay badhankaas taabano oo calaamadda saveka ku taala save markaa taabto u fiirso meesha ku save garayna ayaa la weydiinaya okay downloadska maaragta folderkaas inaad geliso ama folder cusub samee folder test ayaa sameeyey folderkii testla ayaa dhexgeliyey save markan waxaa ilow inaa ciwaanka wax ka bedelo ama workbookan magac u sameeyo si aan u sameeyo waxaa awoodaa inaa qaanadaas meeshas ka furo oo meeshan aa kaga bedelo waxa rabo okay si kale aan u sameyn karna waxay tahay inaan tagno file save as ayaa tegaynaa kadib magac ayaa u bixinaynaa test workbook save u fiirso qaybta sare uu kasoo muuqnaa test workbook okay Microsoft Excel waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah oo loo isticmaali karo qaybo kala duwan oo nolol maalmeedkeena saameyn ku leh sida ganacsiga dhaqaalaheena inaan la socono iyo waxyaabo badan oo aan la soo koobi karin videogeena maanta oo ahaa mid gaaban
oo aan markaas ku baranayna sida loo isticmaalo ama aasaaska hoose ee Microsoft Excel. intaas ayaa kusoo koobana insha Allah. haddii aad jeclaan lahayd barnaamijyo kale oo sidaan kale inaan soo diyaarino, fadlan nala soo wadaag commentiga hoose noogu soo qor. hana iloobin in asxaabta la wadaagto si ay kan ugu faa'iideystaan. waa mahadsantihiin. waxaan idiin soo diyaariyay anigoo walaalkiin Cali Maxamed Ismaaciil Baashi oo idin leh waxaa inoo balana fiidiyowga xiga.